الله يستساعد ninkaasuna caawa naga dhintay caawa soo khadka laga madamin waa naga dhintay ninkaas khalaas wayna daay ninkaas erayadiisa iyo hadaladiisa inaga ku baraarugu weeyay ninkaas waa na daay haye dadka inaad dhib baa jirta dadka Soomaalidu xuma bartaan haddii aad aragtaan qof dhibaataysan oo Yurubta joogo oo aad leefkiisa daawanaysan haddii uu Jarmal joogo waxaa jirta booliis loo sheer gareeyo qayb qaabilsan baa jirta oo la yiraahdo magaceed maxaa la yiraahdo haddii Belgiumka ay joogto qayb qaabilsan baa jirta live-ka iyo TikTok-ta qayb qaabilsan baa jirta social media waa inta la follow gareeyo baa lagu darsadaa waa la sheer gareeyaa marka waa sutun ilaa xarinkani sutun ilaa hooy marka waa yahay iyo dadka iyaga caad isku ah maadaama xaaladaas ninka uu ku sugan yahay ilaa maanta oo dhan iminka muddo 7 saacadood ka soo wareegtay dhibaatadiina waa soo gaadhay dadkina way daawanayaan xaaladiisu way xun tahay dhakhtar geeya baa la leeyahay quraan ku akhriya baa la leeyahay ilmu joojimayso marka maxay sameeynaa anigu hal tala siin lahaa anigu dadka hal tala siinaya waxaan siinaya markuu live-ka soo galo qofkii markaa Norway la jooga ee TikTok account-kiisa Norway ku xiriirsan yahay booliiska waxa la yiraahdaa Norway ein boolisay baa la yiraahdaa Norway ein boolisaygaas u share gareeya live-kiisa automatic bay arkayaan automatic bay ugu imaanayaan meeshu joogo maanta oo dhan baan ugu qorayay dadkan ku lahaa qof Norway joogo inta samee ma garanayaan deenade waa dad xaasidiin dadkani xaasidiin ma waxa waysan baran ma yaqaana waan fahansanay inta qofkii live-ka daawanaya inta live ka baxdid waxaad ku qortaa boolisayga waxaad ku qortaa meesha aad joogtid marka aad Norway joogtid waxaad ku qortaa Norwich boolisay laba boolis baa ku soo kala baxaya mid criminalka iyo mid booliska caadiga iyo emergency-ka saddexda ku darso live-kiisa dib ugu soo noqo share-ta waadiga share gareeya dadka u share gareynaya ku darso marka booliska u share gareey marka booliska automatic bay u arkayaan xaruntiisa ugu imaanayaan qofka way qaadanayaan qof dhan noloshiisii weeyaan hayo nimanka maanta oo dhan hadda ayaan weyn hadda day ayaan weyn baa habeen istilo Russia hadda noo garaaca shaashada iyo yar istaagir war shaashada garaaca bal Russia nin baa dacwo u garaaca ragga dadka u sheekanaba waba adoomaba waba dad inaad oo khiyaal uma wadano ay tiibaan ka soo baxay 6 sanaan ay tii dhiganaynaadeen way وحتى تنقيليو هذا waxay tahay koodii hatta imka dhaho hatta dhaho wallaahi hooyaday macaan wataan waaya ilaa dabdamiska imaanaya ilaa dabdamiska ba wallaahi oo billahi oo tolaha imaanaya xitaa hatta imka hatta haddaan laamiga ku dhaqayliyo inaadeer ninkan balaag maajigu dadka uu ka dhex soocaa inaad fiidiyoda ka daawateen waan u maaynayaa waxa laga ilaaliyaa xitaa inagii baan aaminayn saaxiib sixirka ninka loo adeegsay inagii baa xitaa aamin wuxuu yahay inuu been sheegay waa xusanaanaw kada wax kale live kan hadda share gareysay iminka aad ku jirtid hadda u share gareeyo NRV boolisay right now way guriga imaanayaan macquulba ma ahaba ninkan waa nin booliska laga qarnay saaxiib waxa halkaas loo baahay yaani live-kiisa way saxiyaa ninkan waa nin booliska laga ilaalinayo inay boolisku arkaan oo ariga soo dhex galaan waayo dambiilayaal bay noqonayaan haddii qof xanuunsanaya aad booliska aadan u wicin dambiila tahay dad wax ku ogtahay arrinka saama socota Yurub hadda aan bartaa maraya haddii aan arko qof gaari jibinaya ama qof adduunka ku yimid naftiisa halagaya ama qof naftiisa shak ku jiro isdil oo booliska meesha uu yimaado automatic aan la wareysanaya waxa uu soo wiciyay booliska lagu qofka waarkiisa inuu isdilayay dambiila sax ku noqonay ninka labaad ninka inaadeer waxa uu sheegayo oo dhan waa run waayo balaag maajigu waa wax adduunka ka jira waana wax lagu ugaarsado dadka caanka ah aan runta ku sheegay